bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhowaada warka janaalka wardheer t v qodobada warka waxaa ugu doorka roon taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo xilka kala wareegay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo duqayn ka dhacday degmooyin ka tirsan gobolka jubbada dhexe ra-iisul wasaare kheyre oo kulan la qaatay wasiir ku-xigeenka maaliyadda guddoonka bangiga dhexe iyo xisaabiyaha guud guddiga golaha shacabka ee u xil saaran diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka oo la kulmay madaxda unsob wasiirka cadaaladda iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gudoomiyaha jaamacadda ummadda oo furay imtixaan tacliimeedka sannada 2019-2020 shirka wadatashiga qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka oo lagu soo gebagabeeyey magaalada xudor suudaan oo ku baaqday 2020 suudaan oo ku baaqday 2020 la saaro ciidamada qaramada midoobay ee jooga dalkeeda taasi waxay hayeen qodobada janaalka wardheer t v ugu doorka roonaay iminkana u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa si rasmi ah ula wareegay xilkaasi kadib munaasabad ka dhacday wasaaradda gaashaandhigga ahna taliska guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saree guutooda yuusuf raage ayaa xilka kala wareegay sareegaas daahir aadan cilmi dhaqarshe iyadoona munaasabadaasi ay goobjoog ka ahayeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale qaar ka mid a hogaanada ciidanka xoogga dalka munaasabadaas ayaa waxaa inta badan ay saraakiishu sheegeen in ay ahmiyadda koowaad la siin doono howlgallada iyo sidoo kale guulaha ciidanku ay soo hooyeen dhaqarshe oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidanku ay guula ka soo hooyeen intii ay la dagaalamayeen kooxda argagixisada islamarkaana uu ahay taliyaha ciidanka xoogga dalka sidoo kale odawaa yuusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa isna ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay la dagaalanka islamarkaana caddeeyey hadafkiisa ku aadan sidii dalka looga cirib tiri lahay maleeshiyaadka argagixisa al-shabaab faahfaahin dheeraad ayaa laga helaya duqayn ka dhacday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka jubbada dhexe diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka ayaa duqaymo culus ah la eegtay degmooyinka ay ka mid yihiin jilib saako bu'aale iyo salagle oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka jubbada dhexe halkaas oo ay gacanta ku hayso kooxda argagixisada al-shabaab sida wararka uu ku helayo janaalka wardheer t v duqaytan oo daqiiqo yaryar ay u dhexaysay iyadoona meelaha qaar ah laga maqlayay dagaal toos ah oo weerarada dhinaca cirka ah ay daba socday saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo dhaqdhaqaaq militari ka wada deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in degmada bu'aale ee gantaalada lala beegsaday ay ku dhaceen saldhigyo maleeshiyaadka shabaab ay ku leeyihiin halkaasi duqaynta ka dhacday degmada jilib ayaa lagu soo waramayaa in iyadana lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay saaraayeen kuwaasi oo ku sii jeeday gobolka shabeellaha hoose oo ciidamada xoogga dalka ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah maleeshiyaadka shabaabka saraakiisha ciidanka militariga ayaa sheegay in weerarka ka dhacay degmada jilib uu ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee shabaab lagu gaarsiiyey weerarada isxigxigay ee xalay ka dhacay gobolka jubbada dhexe inkastoo aan weli jirin warar madax bannaan oo si rasmi ah u xaqiijin kara weeraradaasi ay halkaasi ay ku burburiyeen ciidanka xoogga dalka lama oga weli khasaaraha ka dhashay iyo meelaha lagu beegsaday ee duqaynta ka dhacday saakow salagleh iyadoona durba meelaha la beegsaday ay isku hareereeyeen maleeshiyaadka shabaab si kastaba ha ahaatee wax war ah oo ka soo baxay dhinaca maleeshiyaadka shabaab ma jiraan iyadoona taliska ciidamada maraykanka ee africom ay ka soo saareen weerarada dhinaca cirka ah ee xalay ka dhacay jilib saako bu'aale iyo salagleh iyadoona shabaabku saakay howlgallo xoogan ay ka wadaan aagga lagu weeraray maleeshiyaadkooda
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa kulan la qaatay wasiir ku-xigeenka maaliyadda, guddoonka bangiga dhexe iyo xisaabiyaha guud. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa maantay kormeeray xarunta bangiga dhexe ee dalka. ra-iisul wasaaraha ayaa intii uu kormeerkaasi ku jiray waxa uu kulan looga hadlay dardargelinta qorshooyinka horutiminta leh ee bangiga dhexe la qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda, gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee dalka iyo xisaabiyaha guud. bangiga dhexe oo qayb ka ah hay-adaha halbeegyada ku leh tubta horumarinta dhaqaalaha ayaa mas-uul ka ah ka shaqaynta hanaan xisaabeedka ee dalka, abuuridda hanaanka bixinta lacagta midaysan iyo iskudubaridka qorshaha dib u soo celinta hantida qaranka. kormeerka uu ra-iisul wasaaruhu uu ku tegey xarunta bangiga dhexe ayaa qayb ka ah howlaha lagula soconayo hanaanka hirgelinta qorshaha hortebinta leh ee wasaaradaha xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda. guddiga golaha shacabka ee u xil saaran diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa maantay xarunta UN-ka ayaa kulan kula yeeshay madaxda UNSOM qaybta International Electoral Supporters Office. kulankan ayaa ka mid ah kulamada uu guddiga la yeelanayo hay-adaha daneeya arrimaha doorashooyinka qaranka. kulanka waxaa shir gudoomiyaha guddiga xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji injineer carab, iyadoo si weyn loogu gorfeeyey sidii arrimo la xiriira diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka. wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay gaaray isagii wafdi uu hogaaminayo. wasiirka ayaa halkaasi marka uu tegey waxa uu sheegay in ujeedka ay u yimideen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay uu yahay sidii magaaladaasi loogu hirgelin lahaa xabsi weyn iyo sidoo kale goobo kale oo maxaabiista lagu daryeelo. wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay laga hirgeliyo xarun xabsiga dhexe uu ku leeyahay, halkaasi oo ay muhiim tahay in lagu daryeelo maxaabiista iyo sidoo kale in lagu adeego dadka dembiyada ay maxkamaduhu ku xukumaan inta ay xabsiga ay ku jiraan. gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa maanta furay soo gelidda imtixaanka tacliimeedka 2019-2020 kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed xarumaheeda kala duwan, kaasoo maantay ay u fariisteen 2,400 oo arday oo xarumaha jaamacadda imtixaan looga qaadayo. ardayda cusub ee maantay u fariistay soo gelidda jaamacadda ummadda ayaa ku gelaya imtixaanka 4 xarumood ee jaamacadda ummadda oo ku kala yaala xarunta Shabeelle ee Xamarweyne, 2 xarunta Kilometer 4, 3 xarunta Gahayr, 4 xarunta Galmudug Cabudwaaq. gudoomiyaha oo ku sugan xarunta jaamacadda ummadda faraceeda Galmudug ee Cabudwaaq ayaa u duceeyey guud ahaan ardayda maanta u fariisanaya imtixaanka soo gelidda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. shirka wadatashiga qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Xudur. waxaa magaalada Xudur ee gobolka Bakool lagu soo gabagabeeyey shir ku saabsan wadatashiga la xiriira wareegga labaad ee qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka. shirkaasi ay si wada jir ah u qabanqaabiyeen wasaaradda qorshaynta dowladda dhexe iyo tan maamul goboleedka Koonfur Galbeed, iyadoo intii uu socday si weyn loo lafaguray sidii wax looga qaban lahaa ka qayb qaadashada qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliyeed. wasiirka wasaaradda qorshaynta Koonfur Galbeed Axmed Madoobe Nuunow ayaa warbaahinta u sheegay in shirkaasi wax badan ay ka soo baxeen oo anfaci doona ummadda Soomaaliyeed. Suudaan ayaa ugu yeertay golaha amniga ee qaramada midoobay in ay qaado xayiraadda ka bixitaanka ciidamada dalkaasi, islamarkaana gobolka Darfur laga saaro ciidamada nabad ilaalinta ee jooga dalkaasi. danjiraha qaramada midoobay ee Suudaan Cumar Maxamed Sidiiq ayaa u sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la joogo waqtigii laga saari lahaa nabad ilaalinta looguna guuri lahaa nabadeynta Darfur. danjiruhu waxa uu ku baaqay in la soo afjiro xayiraadda saaran dhaqdhaqaaqa dowladda ee hubka iyo ciidamada gaar ahaan gobolka, isagoona intaa ku daray bisha Juun ee sanadka 2020 lala dhammaystiro ka bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta ee jooga dalka Suudaan. guudaan daawadayaal warkii aad kala socoteen janaalka Wardheer TV inta ayuu nooga egyahay.